دكتور محمد عبدي قبوسي وزير كوري وزارة دارمها جودها سوماليلان ومدة سنة أكدب مركي وجوه الرئيسي صحافة دهوري ميسقو كهلا يعرم السياسات وحاول شيء إن حكومة ده جامية مدحوين بيحي أي ودن كوها جيسون نظام خلدان وحنا وشيء إن حكومة ده أيضا ككل قيسو نظام قيبي أو حكم دكتور قبوسي وإذا ما كلا دون وشيدين أي حكومة ده يحسبك ثلاثة هي أي وحو يري sida aad la socotaan muddo dheer ayaan ka maqnaa masraxa siyaasadda inkastoo jireen arrimo badan oo mudnaa inaan ka hadlo sidaa waxaan mooday dan waxaan door biday inaan ummadayda ugu hagarbaxo xirfadayda wixii aan qaban karo waxaase soo hiyikiciyey xalana aan la gami waayey markaan ku qancay heerka maanta dalku marayo oo ah mid xasaasi ah isla markaana aan indhaha laga qarsan karin sidoo kale waxaa dareenkayga taabtay muxaadaro uu jeediyey sheekh aadan siiro taasoo dhawaaq dheer iyo mid hoosaba waano iyo tusaaleba oo kula hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada inteeda mudanba موضوعنا ظلمك عواقب حميديسة هي هلك أي دين الإسلام كتاجنت وجهرين ملكك هي الثلاثة هجانك هي كرسيك وحب حيا إلهي سبحانه وتعالى وحان أوصيا هتبقف كدونه وحان ربائنا نحصه سدو دونها كوي ماده أنوجم معه mid madaxweyne Muuse Biixi madaxnimada u diidan sababtoo ah waxaan ahay adoon ogol Ilaahay iyo ku tasarrufka deeqihiis mana ihi qof xaasid ku ah hibe bixiye balse taa bedelkeeda waxaan si dhab ah u jeclahay madaxweynuhu inuu xilka uu hayo in Ilaahay ku asturo ummadana uu wanaag iyo cadaalad ku hogaamiyo kana tago taariikh wacan waayo waad ogtihiin waa doon badweynta maraysa naaquudihiina ninun baa noqon lahaa dadkaas saaran xaasa oo dhan waxay jeclaan lahaayeen safarkaasi inuu ku dhamaado guul marka haddii xumaato way la wada xumaanayaan haddii wanaagsanaadana way la wada wanaagsananayaan waxaase ii muuqda oo aan diidanahay maamul xumida maanta dalka ka jirta iyo cirib xumideeda dambe waxaan jeclahay inaan iftiimiyo shirkaygan jaray ma aha mid ku wajahan weerarka kursiga madaxweynaha ee wuxuu daaran yahay dardaarankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa u hiili walaalka haddii laga gardaran yahay iyo haddii uu gardaran yahay sawirka guud ee maanta dalku marayo ma aha mid qurxoon wuxuuna dib ii xasuusiyey mirihii ka dhashay talaxumidii 60kii isna weydiiyey sida bilaa gorgortanka ah ee ay labadii dhinacee midoobay dhankii kale ku qaateen dhammaan mansabyadii iyo manficii dowladnimada baadigoobkii jawaabtaas waxay noqotay inaan lala tegin talo iyo qulub midays ifafaalaha ii muuqda wuxuu i tusayaa talo xumo iyo kala qaybsanaan ka qota dheertii hore lagana yaabo in maxsuulkeedu ka cirib xumaado tii 60kii haddaan labdaba qaban oo aan eebe caymin abwaangaariye allahu naxariistee wuxuu yidhi berigii isticmaarka taladii la ilduufay burburkaad aragteen iyo hadday keentay inkaarta allana ay tusi waayo anna maanta gafkaygu inuu aasayo miino ubadkayga u taal nasiib darro in muddo ahba waxaa ka hana qaaday geyigayga siyaasad kooxaysan oo ku qotonta
kala qaybinta iyo kala irdhaynta ummadda walaalaha kooxdani waxay ku adeeganayaan isbahaysiga siyaasadeed ee jeegaamaysan oo ah shaar ay keligood ku macaashaan waxaan ku nuxnuxsanayaa inaan marnaba beelaha ay ka soo jeedaan loo aanayn karin ereygaas iyo siyaasadda guracan ay halabuurkooda leeyihiin badanaa inta hal door milge iyo maamuus leh oo ka soo jeeda beelahaas oo karaamo iyo waxqabad ummadda u soo kordhin lahaa xayndaabka siyaasaddana looga tuuray maadaama aanay la aragti ahayn waxaynu wada ogsoonnah in nuxurkii halgankii adkaa iyo curashadii somalilan ujeeddadeedu ahayd inay dalkeenna ka suusho cadaalad darradii iyo dulmigii midabada badnaa ee ina soo maray mid shakhsi iyo mid deegaanba lana dhiso bulshaweynta somalilan bari iyo galbeed oo nabdoon midaysan meelna u wada jeeda dhib iyo dheefna u siman waxay cabashooyin sii kordhaya ka soo butaacayaan gobollada awdal iyo salal iyagoo ah hoygii midnimada somalilan loomana muujin waxgarowshiga himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee u waday brofesor axmed ismaaciil samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo somalilan la wada leeyahay waxay ku dambaysay inay tis qaadi weyday lana siin waayey mudnaanteeda sidoo kale waxaa jihaala-aan u deldelan gobollada sool iyo sanaag bari waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarinay ka jirin waxaana ka aloosan dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida haldoorkii u yimid ee uu cali khaliif hoggaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen bahdilaad iyo niyadjab waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee sanaag bari iska daagarowshiyo iyo baadigoobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkaynaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo ka ciidanba laguna sheegay calooshooda u shaqaystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray inta hadhayna loogu baaqay inay ka daba tagaan taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadinimu iyadoo raggaas ay ka mid ahaayeen qaar badan oo tiraba dhowr jeer u dhaawacmay difaaca qaranka somalilan duruufo adagna ugu dhabaraday waa halkii gaariye dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadanow hagrateen raacdadoodu adkaato lagu raadsho ilays waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogaynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku la-atay sidii dalkan iyo dadkuba u xoroobi lahaa inkastoo ay muujiyeen inay oggol yihiin qarannimada somalilan iyo la shaqaynta hadba hoggaanka jooga waxaa loo sawiray inay yihiin cadow maantana waxay ka aradan yihiin manfac iyo mansabba waxay xaq iyo xuquuqba u lahaayeen waxaa kala shaki iyo isubahalagelin la kala dhex dhigay iyaga iyo walaalahood taasoo wiiqday muuqaalkii wada jirka ee qarankeeda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa kula dardaarmay inay karaameeyaan kuwa beelahooda iyo bulshada dhexdooda karaamada ku leh waxa ah wax la liqi kari waayey in madaxweynuhu qiimayn waayey odayaashii beelweyntii siday nabadayntii arrinta caariya fadhigaana waxaa ugub ku ahaa isla markaana bahdilaad u muuqday in madaxweynuhu odayaasha
nabaddii la qaadan waayey isla markaana cajalad ka duubay soona baahiyey waxaa isa soo taraya nasiib darrada ku habsatay nidaamkii doorashada Soomaaliland oo u muuqda mid fadhida waxaana muddo dhaaf ah doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii golayaasha deegaanka iyadoo nasiib wanaag dalkeenna aanay ka dhicin aafooyin sababi kara dib u dhaca intaa leeg arrintaasi waxay dhabarjab ku tahay inuu dalkani iyo dadkuba helaan xuquuqdoodii ahayd kala xulashada kaadirkii ku habboonaa hoggaanta mustaqbalkooda intaasoo rajo xumiya waxaa ka sii daran shaqo la'aanta baahsan dhaqaalo xumida saamaysa bulshada inteeda badan cadaalad darrada iyo musuq maasuqa xarigga goostay xarigga iyo cagajuglaynta loo geysanayo cid kasta oo fakarkeeda saliimka ah cabirta iyo awooddii dawliga oo si aan hamrasho lahayn loogu xalaalaysanayo hantidii qaranka iyo tii danyarta baroorta hooyaduna ka dul yeerayso dhagaha qadiyadda Soomaaliland ma aha qadiyadda Soomaaliland oo ah mid aan u soo halgamay aaminsanahayna inay danteenu ku jirto ku mira dhali mayso in naxli la kala dhex dhigo bulshada reer Soomaaliland iyo shacabka kale ee Soomaaliya mana aha inay noqoto mid hergelinteeda lagu baadi goobo ciil caro iyo xiqdi dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland looma aanayn karo dad shacab ah balse waxaa geystay oo ay tahay in lagula xisaabtamo taliskii Maxamed Siyaad Barre sida aan maantay dhibka xukuumadda Muuse Bixi geystaa aan beel iyo cid kale toona loo aanayn karo inkastoo jiraan intaasoo mugdiyo ah oo isa saaran waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga cilaamiye Burco noqon karo mid badbaado qaran shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara dibna u yegleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto waxaan ku talinayaa in shirkaas inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlan labada beelood oo keliya ee gogoshu noqoto mid furan oo turxaan bixisa kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu talooyin u soo jeediyey madaxweyne Muuse Bixi Cabdi waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kula talinay kow madaxweyne waxaan kugula talinayaa inaad meesha ka saarto siyaasadda kooxaysan oo loo aanaynayo kala irdhaynta bulshada ummadana aad dhex noqoto labo inaad garowshiyo iyo xaal ka bixisid deelqaafkii ummadda ku dhaqan Sanaag Bari ka soo gaaray jaranka ciidanka qaranka inaad mudnaan gaara siiso tabashada gobollada Awdal Salal Sool iyo Sanaag Bari kuwaasoo la'aantood aanay jiri karin Soomaaliya inaad hoos u eegto cabashooyinka beelaha iyo raadadka ay reebtay doorashada inaad ka waantowdid xarigga wariyaasha iyo cid walba oo fakarkeeda saliimka ah cabirta xorriyaddiina u soo celisid muwaadiniinta u xiran aragtidooda sideed inaad si dhaqso ah isugu yeedho waxgaradka iyo waayo aragga ummadda kalena tashato xaaladda adag ee dalku maanta maraya iyo sidii looga bixi lahaa sidoo kale waxaan waxgaradka ummadda ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay waxa aan isku nahay waxa laysku hayo inay ka weyn tahay waxa laysku yahay beerkoodana burcad isku mariyaan haddii hoggaanku wanaagsanaadana
horumarkooda iyo wadajirkooda ku dhaqaaqana ay taageeraan wabillahi. telefishinka Home Cable waxa uu Dr. Gaboose weydiiyey bal in uu gudoomiye Ciro kula tartamayo jagada gudoomiyaha xisbiga wadani ama musharaxnimada xisbigaasi. hoggaanka xisbiga wadani nin baa haysta kulana tartamay. Xasan Suleymaan Harun Xasan Galeyd wararka Home Cable magaalada Hargeysa.